shadaanahay urujinima la siiyo birta cala shadaanahay biyamka gariiriyo buuba sayriyaanahay urwacdiyo cadaawa ciidan baabashaanahay warkiyo habaaskiyo budka kula tuntaanahay runtii sharaf weyn bay ii tahay inaan maanta ka soo qayb galo xafladdan dufcadii tobnaad ee ciidanka ilaalada xeebaha ay ku qalin jabinayaan waxaan marka ugu horreysa mahad ilaahay ka sokow u mahadnaqayaa dowladda imaaraadka oo runtii hirgelisay ciidankan jiritaankiisa agabkiisa dhaqaalihiisa tababarkiisa iyo gacan ku hayntiisaba waa ciidan kaalin weyn ka buuxiyey howlaha lagu sugayo amniga iyo kala dambaynta puntland ugana jira kaalin firfircoon oo lafdhabar ah aasaaskoodu uu yahay in ay ka ilaaliyaan cadowga xeebaha noocuu yahayba kuna darsaday inay ka qayb qaataan howlgallada kale ee ku soo wajahmay marxaladdan xasaasiga ah puntland oo ugu horreyso la dagaalanka argagixisada iyo sugudda ammaanka guud ahaan puntland waxaan u mahad celinayaa dhammaan agaasimaha iyo saraakiisha ku howlan sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen ciidanka b m b f dhinac tababar dhinac howlgelin iyo dhinac qorshe shaqooyinka waaweynee hor yaalla waxaad og tihiin muddadii u dambeysay puntland waxay ku howlaneyd siday ciidamada tayadooda kor ugu qaadi lahayd iyadoo ulajeeddada ka dambaysa ugu weyn ay tahay in dadka reer puntland ay nabad iyo xasilooni ay ku waaraan dalkeennu uu horumar ku tallaabsado dadka raba inay maal gashtaan oo ka shaqaystaanna ay u yimaadaan iyagoo aan cabsi ku jirin waxaan si gaara runtii b m b f uga mahadnaqayaa khaasatan gobolka bari magaalada caasimadda dhaqaalaha ee boosaaso waxa ay ku fadhido oo ay maanta ku naaloonayso oo shaqooyinkeedii ganacsi saldhigga u ah waxaa ka mid ah waajibaadka adag ee ciidamada kala duwan ay gutaan oo ay qeybta ka yihiin saaad og tihiin ciidamada puntland ee daraawiishta iyo booliiska iyo kuwa xabsiyada iyo ciidamada b m b f iyo b s f
oo ka kala tirsan ciidamadaas hoostaga laakiin aan ka helno gacan gaar ah dowladda imaaraadka iyo dowladda maraykanka inta kale ee ciidankaana dhaqaalaha dowladda puntland ayaa ku baxa waxaan ku dadaalaynaa kala qaybsanaanta ciidamada u dhexaysa dhinaca mushaharooyinka inaan is soo gaarsiino si ay u noqdaan ciidamo kulligood walaalo ah isku hadaf ah si wada shaqayntooda u hirgasho waxaan iniin rajaynayaa in aad dadaalka aad samayseen aad ajarkeeda heshaan ummaddiinna maanta abaal bay inay haysaa waxay ku faraxsan tahay shaqooyinkii hore ay soo qabteen b m b f waxayna sii gelisay idadiilo hor leh inay b m b f kaalintii ay ku jirtay iyo mid ka fiican ba ay gudan doonto waxaan iniin rajaynayaa in aad wixii aad barateen aad ka midho dhalisaan oo ka run sheegtaan oo ugu horrayso inaad disibiliinka dhowrtaan inaad saraakiisha iyo madaxdiinna aad addeecdaan inaad noqotaan dad howlkar ah oo hawshooda fusha inaad goobta cadowga aydan noqon kuwo baqa ee geesiyaal aad noqotaan inaad u dhabar adeegtaan duruufaha adag ee soo imaan kara xaaladaha shaqo anoo ogsoon b m b f xaaladaheeda nololeed iyo agabkeedu inuu aad u sarreeyo laakiin haddana howlaha ciidanku mar walba waxay la kulmaan caqabadahaas waxaa la rabaa inaad u dhabar adeegtaan dalkiinna waa inaad gaarsiisaan inaan muwaadiniintiinna iyo hooyooyinkiin iyo aabbayaashiin iyo ciyaalkiinna iyo ehelkiinna aysan cabsi dambe aysan ku noolaan